agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta Somaliland aadan Cabdullaahi Cabdalle waxa uu sheegay in 3 arday oo reer Somaliland ay ka qayb gali doonaan tartanka caalamiga ee Qur'aanka Kariimka ee sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan lagu qabto dalkaasi Jabuuti. 3daasi arday oo ku tartami doona 30 juz ee Qur'aanka, 20 juz iyo 10 juz. Agaasimuhu waxa uu sheegay kala xulista tartanka Qur'aanka Kariimka ee lagu qabanayo dalka Jabuuti inay bilaabmi doonto 17ka bisha ee sanadkan iyadoo wasaaradda diinta ee waqaaftu ay kala xuli doonto ardayda. Agaasimuhu waxa uu sheegay shuruudaha looga baahan yahay ardayda iyo waliba madrasadaha danaynaya in ay ka qayb galaan tartanka caalamiga ah ee lagu qaban doono bisha barakeysan ee Ramadaan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. waxaanu maanta kulankan u qabanay ama rabnaa inaan iclaamino waxa la socotaan waxa sanad kasta la qabtaa tartan caalami ah oo ka dhaca dalka Jabuuti. tartankaasi oo ay ka soo qayb galaan dawlado fara badan oo Carabi Afrikaan isugu jira. tartankaas Qur'aan Kariimka ah waxa maalgeliya hadii jeeraale madaxweynaha dalkaasi Jabuuti mudan Ismaaciil Umar Geelle. Somalilandna waxay ka mid tahay dalalka lagu soo marti qaado sanad kasta. runtii wasaaradda diinta ee waqaafta maadaama ay ogman tahay guud ahaan arrimaha diinteena suuban waxay sanadkaas xil iska saartaa sidii loo heli lahaa 3 arday ee xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland matalaya ee ka qayb galay tartankaas inay noqdaan arday runtii diyaarsan. annagoo marka chance siina guud ahaan malcamadaha dalka iyo madaariska Qur'aanka Kariimka ah halkan aan ugu qabano tartan isreebreeb. haddaba munaasabaddan maanta waxaan uga faa'iideysanaynaa inaanu si rasmi ah u cilaamino tartanka isreebreebka ah ee wasaaradda diinta ee waqaafta qabanaysa ee loogu diyaar garoobayo tartanka ka dhici doona dalka Jabuuti bisha Ramadaan. haddaba halkan waxa ku xusan waxa looga baahan yahay ardayga horta guud ahaan waxa tartankaasi qayb galaya 3 arday oo ku kala tartami doona 30 juz, 20 juz iyo 10 juz. maadaama marka Somaliland ay matali doonaan xulkii qaranka guudna ay noqon doonaan shuruudaha looga baahan yahay ee wasaaradda uga baahan tahay in ay tartanka isreebreebka ah maxaan ku raahdaa ee wasaaradda qaban doonto waxa kamid ah kow ardayga madrasada uu ka tirsan yahay madrasadiisu waa inay ka diiwaan gashan tahay wasaaradda diinta iyo waqaafta waliba diiwaan gelintii sanadkan ay maxaan ku raahdaa ay sameysay. qodobka labaad maamulaha madrasada ama madrasada ardayga maxaan ku raahdaa uu ka tirsan yahay maamulihiisu waa inuu ka diiwaan gashan yahay sidoo kale wasaaradda diinta iyo waqaafta. madrasad kasta waxay soo gudbinaysaa 3 arday oo u tartami doona 30 juz, 20 juz iyo 10 juz. qodobka afraad waa inuu ardayga si fiican u xifdisan yahay Qur'aanka Kariimka ama intii uu ku tartamayay. sidoo kale waa in aanu ardayga ka weynaanin 25 sano uu ka yar yahay. qodobka lixaad haddii ay madrasadu doorato inay qaybaha lagu tartamayo qayb kamid ah ku tartanto tusaale ahaan haddii madrasadu tiraahdo 30 juz ma keeni karna 20 juz iyo 30 juz baanu keenaynaa wasaaraddu runtii wax caqabada kaga iman doonto waana aqbali doonaa. qodobka toddobaad ugu dambeeya waxa uu noqon doonaa waqtiga ugu dambeeyay ama ugu dambeeyay ee diiwaan gelintu socoto. dhinaca kale Sheekh Maxamed Macalin Aadan agaasimaha waaxda madrasadaha iyo masaajidada ee wasaaradda diinta ee waqaafta Somaliland ayaa waxa ugu baaqay maamulada madrasadaha iyo ardaydoodu inay soo buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay si ay uga qayb galaan tartankaasi. annaga xagga iyaga waanu diyaarinay tartanka guddi baanu u qabanay wanaagsan oo cilmi u leh cilmi Qur'aanka aad iyo aad u yaqaan oo aanu ku kalsoonay inaanu cadaalad hadii alla ilaahay ku garsoori doono inamadeenna oo intii alla u qoray soo baxdo inaynu ku kalsoonaan doono ayaanu rajaynaa hadii alla yiraahdo hadal badan meesha yimaayal. waxaan leeyahay macallimiinta hala soo dadaalo wada shaqayn wanaagsan baynu leenahay. qoladii waajibkooda gudatay soo diiwaan galin waa mahadnaqaynaa kuwa kalena waa mahadnaqaynaa. Mawlid Maxamed Saciid magaalada Hargeysa.